lama cuno sama iyo xumaataba saaxiibkayga kama haro Somali baanahay saamigayga lama cuno sama iyo xumaataba saaxiibkayga kama haro waxaan ku sooro sugo waraqana aniguna sadquuleed kama qaato ruux sida waxaan ku sooro sugo waraqana aniguna sadquuleed kama qaato ruux sida سقيها قردرد مساعدو قفي سدا يبالكي كسيه قرتاناي سياسيين النادي ضمان وحاوي oo ka kooban degmooyinka qalaafe dhawaweyn igloolay shilaabo kana tashanaya mataqaana ayahooda shirka waxa lagu furaa maadaama dad musliman nahay aayadaha quraanka iyo in yaro mataqaanay wacyi gelin ah marka waxaan ku soo dhaweyn lahaa haduu ilaahay yiraahdo الشيخنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. حقك أضيء أن هذا مثلا أسبرشة بسوء دوينا أنت ما نص السفر إذا وحاوي كل وحنفك على شعرنا ميلك لدوان قلت أن يبقى أكتيفيستا أيام لا أنا أيام أحسن ساعة بالدوار أو أهنيك طبعا قالي سونة شدي رواين سونة شدي البوكا بروسل كا وكدي يعني شيئين وهرجع وكنتم برستيبات سونة شدينا هي كوشنا كلام قاعدين هذا واحد منطقة سونة شدينا هي واوجه وداتوين وكسمي عامك المراه غير خيرات كشدار وكذا يقاوم الورد سامي قيسيا أفكر وكيسن كرو كل إن شاء الله سو لما يسترنا وانجلي دونا سجى نوسو شيدين دونا خالد فرح سويان وقدوميها لنيرتا يعني أيام حسن إساق وسان دين شيء وأكتيفيست جارا أو أنت بدنا محاوي كشق يا رمها بالشدة أنا وحنا يقدومي كحيين كلنيرتا أن حاجة كلادي أن قضبض النذا أن متقنا يرفع دعان صور دقنو قضب كلابات متقنا أن كهذا دون هدو إلهي لهذا وحنون نقول دونا سو شيدينته بوجا بروبوسال كأسوأ كوبان أو وقت ما تقنا لقى فإذا سنة يلا سو شيدين دونا وحنوجه في دونا هدو إلهي هذا كهذا الكا من نماذا اسكودوم نذا مالك استوى ما أنت لقاه الله من نمام بلقاه الله أنا وحنكم بدون كردنا يراهن إن من نماذا كشقينه وحوي وحلا على وجه اللي بعيدك waxa la wixii dhibay ma taqaana dadka guud ahaan Soomaali gaar ahaan deegaanka aan joogno wixii khilaaf dhexdooda ku keenay inaan ka saarno waxa weeye waxyaabo badan oo ma taqaana soo maran xalinay way jireen markasta waxaan diyaar u nahay ka dhalinyar ahaan danta guud inaan hormarino taanada gaarka aan dib u dhigno kana shaqeyno san isugu keenin lahayn waxa weeye waxa la wixii dhibay ee ku dhex jirana asaan oga saari lahayn dulqaadka iyo samirka ma taqaana waxa weeye haweenka hooyooyinka dhammaan waxa weeye ay dulqaadka iyo samirka badiyaan saddexdan gudi nimba wax buu kale soo qabtay waas caafi wuxuu wataa ma taqaana DJN waa organization waa doobaweyn jeexdin network waa shabakada waxa weeye doobaweyn dhalinyarta ka dhigan tahay
hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan dhex geli doonaa soo jeedinta waxaan aad ugu mahadcelinaynaa odayaasha ka soo qayb galay ee ka imaaday waxa weeye qaybtooda ay ka imaatay Qalaafe qaybtooda ay ka imaatay waxa weeye Shilaabo qaybtooda ay waxa weeye Igloole iyo meelo kala duwan ay ka imaadeen Soomaali baanahay saamigayga lama cuno sama iyo xumaataba saaxiibkayga kama haro Soomaali baanahay saamigayga lama cuno sama iyo xumaataba saaxiibkayga kama haro marka hadduu ilaahay yiraahdo waxa weeye shirkunaguna noo socon doona marka waxaan codsanaynaa oo codsanaga shirka marka aan qaybinayno daqiiqada anagu aan qabanay baa jira shakhsiga aanu qabanay daqiiqadaha inuu ku koobo oo isku dayo inuu hadalkiisa oo kooban oo muhiim ah inuu daqiiqadaha ku soo koobo saamigayga lama cuno dhalinyaradii aqoonta lahaa ee bulshada isbedelka ku sameyn lahaydna way fadhiyaan inta noo muuqato waa farxad in lisu yimaado tala lisweydiiyo mustaqbalka wixii la qaban lahaa laga wada hadlo wixii dhib hor yaalla dadkuna ka tashado way fiicantahay aad inaan ka soo qayb galno marka shirka noocan farxad bay noogu jirto waana soo dhaweynaynaa waan ognahay deegaanka isbedel baa ka dhacay 27 sano oo la soo dhaafay intii isbedelku u dhacay wadanka guud ee qowmiyadda Soomaalida ay xorriyad u heshay iyagu inay iskood isu maamulaan qowmiyadaha kale si la mid ah wadanka isbedel baa ka dhacay horumar baa dhacay dadku xuquuqdooda helayeen deegaanka Soomaalida 27 sano la soo dhaafay si dhaba marka looga hadlo waxa laga yaabaa isbedelka intuu dhannaa iyo fursadii taalay marka la barbar dhigay intuu ka faa'iiday inay kooban tahay sababo jira ugu nabadgelyaha la xiriidho maamul wax la xiriidha ha jiro bulshada iyo magaranaysa wacyigoodii aqoontooda heer ku joogo wax la xiriira ha ahaatee fursadii ay haysteen sida loo baahnaa inta badan ogamayna faa'iido hay'ashe wax laga faa'iidin macnaheedu ma waa la faa'iiday meel yar hada soo qaato shalay xilligii dhargiga halkay ku sugnaadii maanta halkay ku sugantahay way kala bedelantahay dhaliishu waxay noqon kartaa oo kaliya 27 sano gudahooda waxaan qaban karnay iyo waxaan qabanayna iskaalan baa dhaliishu noqonaysa bulsho markay horumarayso waxa ugu horeeya ka horumartay aqoonta way deegaanka waxa isleeyahay aqoonta ku yaray horumar inuu fulo wuxuu u baahan yahay nabad in loo helo jidkii la jeexayba hadii cagaftii qodaysi la gubay dhibkeeda ilaahay labadaas arrimood dabada factor oo laga yaabo saameeyntooda inay lahaayeen maanta waan ka gudubnay deegaanka Soomaalida dad aqoon lama joogan cidna ma dhihi karto deegaanka Soomaalida nabad la'aan baa ka jirta maanta cidna ma dhihi karto waa xilli marka ku habboon in aad loo tashado sida guud ee deegaanka tan labaad waa khayraadka dabiiciga ee deegaanka ku jiro deegaanka khayraad dabiiciga ku jiro wadanka meel badan baa laga baaray khayraadka dabiiciga haddana khaldanayn 1945 meelaha ugu horeysay marka la yiraahdo jeexdir shidaal baa ku jiro
jeexdir shidaal baa ku jira marka la yidhi 60 sano ka hor weeyaan dhargigii baa yimid xilliga haddana khaldanayn Jarmal iyo Mareykan midkood bay ahaayeen meelaha dhargigii baa yimid system shuuciya baa talinayay shuuciyadii ay ku xidhnaayeen kaaluubta la sheegay kambariga meesha ka shaqaynay weeyaan oo Russian ah kuwa gacanta loo geliyay dhargii systemku isbedelay inta ka dambeysay kambaniyaal aad u fara badan oo kala gedisan baa soo galay kolba kambani bay dawladda federaalka heshiis la galaysay sababta uu la dhaqaaq way khayraadka dabiiciga oo la hormari waayay inta badan waxay ahayd wax la xidhiidha nabadda iyo kambaniyaasha commitmentigooda ka go'aanshooda in shidaalka la soo saaro maanta ha noqotay shaqadii way socotaa deegaankeenu jeexdin kaliya meesha khayraad kale ma aha cobolo laga bilaabo ilaa hela quraan ilaa wardheer dhankeeda shishe inta u dhaxaysay inta badan khayraadka ku jira ee kaliya waxay ku kala duwan yihiin stage-ka ay midba marayso ay kala duwan yihiin kane 45 ilaa maanta la baarayo la soo waxaynayay kolba heer buu maraya heerka uu marayo ku kala duwan yihiin maanta waa maalinka ugu dhowdahay in laga faa'iido marka cidii marka dhibka soo mudatay inay faa'iidadii qayb ka noqoto ugu horeyso markii wadanka guud la taagay waxaan ka hadlaynaa deegaanka Soomaalidu xuquuqdu u leeyahay odogtiin dawladdu waxay leedahay xafiis ama wasaaraddu qaabilsan arinta dawladda federaalka iyo dawladda deegaanka way ka wada hadli hab dastuurka waafaqsan oo resource-ga lagu qaybsanayaa jiro dawladnimada wayga wax ka baxsan oo jirayna ma jiro taa waa dawladda waajibkeeda iyo shaqada ay qabanayso markii deegaanka loo yimaadana maxaa la yiraahdaa dhariga si loo kala dhow yahay miyaa la dhihi jiray marka dadkii area-da u dhawaay dhibka badan ku soo mutay xusid bay mudan yihiin iyana shuruucda dawliga baa xirin shuruucda dawliga ee deegaanka u taala ama loo sameeyo ee hay'adaha ay khusaysan u diyaarinayaan baa xirin hay'ashee bulshadu wixii iyagu ay orkaan inay dan ku jirto intay ka hadlaan dawladdu wax codkooda inay u gudbiyaan waa waajib oo loo baahan yahay kadibna dawladdu iyadoo taa ka duulayso yay wixii go'aana iyo wixii shuruuc ay sameynayso ay sameyn waan ogaanaa hadduu shidaalka soo baxo kama hadlayna meel yar oo la degan yahay dad kooban ay degan yihiin kilomitro kooban wadanka dhan buu faa'iido u yahay estimation-ka ugu dambeeyay la sameeyay haddana khaldanayn budgetka guud ee wadanka 2011 wuxuu ahaa 346 bilyan sanadka ugu horeeyay shidaalka la dhoofinayo 354 bilyan miya estimation-ka macnaheedu budgetka wadanka dhan ee uu leeyahay iyo halka doorka ugu horeeya laba laabaya taa horumarkii wadanka dhan bay saameyn ku leedahay taa horumarkii deegaanka ay saameyn ku leedahay taa horumarkii bulshadii u dhaweyd bay saameyn ku yeelanaysaa marka khayraadka waa la heli in commitment iyo dawladda ay qaadato inay soo saarto iyo kamariyaasha ka shaqeynayaan baa muhiim bulshadu xuquuq iyo waajibaad way leedahay waajibaad baa saarano xaq kaliya kama hadlayno dhulku shidaal ku yaalo waan ognahay xadkan uu dhawey dhulku shidaal ku yaalo wuxuu u baahan yahay amni inuu helo dhulku shidaal ku yaalo wuxuu u baahan yahay kambaniyaasha lala shaqeynayay inay ammaan dareemaan in lala shaqeynayo la soo dhaweynayo inay dareemaan in gacan la siinayo inay dareemaan maaloodan jeexdin joogay waxay iga cawdeen dhulka dhan baa la gubay waan inta dhex socday dhulka daaqa oo la gubay oo aad loo gubay baan marnay marka uu dheen geel jiriyaasha gubay hadiiba qaalintii geelaya gashay maanta aan la waayay the reason loo gubo dhulkii ma jiro
bulshadii wacyigelin bay u baahan tahay maamuladii odayaasha meesha jooga inay wacyigeliyaan baa loo baahan yahay degmooyinkan hadda meesha jooga Shilaabi iyo Dhoweyn iyo Niglooli iyo degmooyinka ku xeerani waxa loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan bulshada reer miyiga inay wacyigeliyaan oo kambaniyasha shaqadooda say ku qabsan lahayn lagu wacyigeliyo dadka inay gacan ku siiyaan lagu wacyigeliyo maamuladana gacan siiyaan marka bulshadu codkeedu waa muhiim in la maqlo waana la maqlo wala dhageysan wixii shuruuc dawladeed xeerinaysana wax kasta markii la dhageysto kadib sharci ay u baahan tahay dawladeed iyo xeerin marka weyga loo xeerinayay waxa input buu noqonayaa bulshada codkeeda markay dawladda maqashiinayaan wax laga duulo u noqonaya dhabti marka taana waa muhiim khayraadku marka waa laga faa'iidi doonaa wadanka dhan buu faa'iido u yahay waxa laga yaabaa tuulada yar ee jeexdin ka hadlayno jeexdinta aan ka hadlayno wax yar oo laga soo saaray wadanka dhan isbedelku ku saameynaya budgetka intuu leeyahay wad arkaysan marka waa faa'iido guud oo wadanka waa faa'iido guud oo deegaanka waa faa'iido guud oo faa'iido gaar ahaaneed way noqonaysaa marka taa inaan saa u eegna ila quman saameyn buu yeelanayaa shidaalku waa taa ajendaha idin ah shalay saameyn buu soo lahaa negative maanta waxaan ka hadlaynaa saameyntiisa negative iyo ta positive ka labaduba aan isbarbar dhigaynaa dhanka wanaagsan iyo dhanka xun negative ku wuxuu noqon karaa dhulkii daaqsimaadkii ay reemigu xoolahoodu daaqayay oo nabaad guuray bulshada barkeed meelahay deganaayeen oo laga rarayo shidaalka darti xumaan ma shidaalka darti looga rarayo waa dan guud haday qasabto danto in laga rarayo waa laga raray laakiin qofkii meesha laga raray saameyn xun bay ku yeelanaysaa meeshu deganaa inuu ka guuro meeshu daaqi jiray inuu waayo saameyn bay ku yeelanaysaa saameyntaas waa tan hadda saameynaysaan daraasaadkeedii dan dawladda loo gudbin doono haddii Ilaahay yiraahdo dawladuna meesha ay khusaysantay u gudbiso ay eegi doonto wanaagana wataan ka hadlaynay marka midna lama ilaawayo markii dadku ay hadlayaan saameyntu ku yeeshay bay ka hadlayaan magdhow iyo wixii shuruucda dawliga ay marayso in la mariyay codsanayaan oo u baahan yihiin codsadaan aqoonta hadda markii shidaalka la sameeyo dadka ka shaqeynaya xirfadlayaasha dadku waa kala labo waxna waa maamul oo guud waxna waa dad technicians oo aqoonta ay u baahan tusaalahan shidaalka petroleum engineering ruuxi bartay waa qof aqoontii loo baahan yahay meel kasta oo joogtaba uu kaga shaqeynay filiyada noocan xoog la saaro oo la barto oo dhalinyarada lagu leexiyay ay bari uga shaqeyn kamariga shidaalka waxa laga yaabaa shidaalka markuu soo saaro agreement lagu galo 5 sano lagu galo 5 sano kadib shidaalkii la habeeyo inuu iskaga baxaba managementigiisa ay la wareegaan wadankii dadna ninkii aqoonta lahaa ku tartami lahaa meeshii inuu joogo yaa loo baahan yahay hadhow lama baahna inuu yimaado shidaalka markuu kambaniga baxay qof petroleum engineering baa la waayay dadna meel heblu ka yimid dadna hadal laga hadlo looma baahna hadda ninkii wax baranaya barto petroleum engineering aan barto hadda cidii la meeshaasan mustaqbalka ka shaqeynayna waa inay u diyaar garowdeen aqoonteeda qaadata way haday qaadan weyda aqoonteeda markaa kama faa'iidayaan markuu horeyso waxaan horta u mahadcelinayaa dhalinyaradii iyo odayaashii iyo dadkii aqoon-yahanka ahayd shirkan inuu qarsoomo juhdiga soo geliyay waa arrin aad u weyn weeyaan deegaanka intii aan joognay dad intaa leeg oo isu yimaada waa maalinkii koowaad weeyaan wax isweydiiya oo yidhaahda bal maxaa dani noo ah marka waxa weeyaan dadkii shaqada qabtay aad baan ugu mahadcelinayaa meel laga helayo waxa weeyaan beertii iyo shidaalkii iyo xoolihii ayaa ku yaala maxaa wadankeena tan noocaasna waxa weeyaan haddii waxay tahay midnimada la helo iyo walaaltinimada unbaa laga faa'iidi karaa waxa weeyaan dadkana looga faa'iideyn karaa lagana faa'iideysan karaa taas waxa weeyaan marka inaan midnimada guud la ilaaliyo oo wax meesha ku jira weeyaan resource-ga iyo khayraadka deegaanka ku jira iyo waxa weeyaan meelahaas waxa weeyaan lagu abtirsado ku jira waxa laga faa'iideysan karaa dhalinyarada inay waxa weeyaan waxbarashada in xoog la saaro waxbarashada in xoog la saaro ay muhiim u tahay xukuumadda hadda joogta kulli waxa weeyaan waagii hore caqabado badan way iska jireen oo waxa dhici jirtay dadka aqoon-yahanka waxa weeyaan inaynan waxay helaan aysan jirin laakiin hadda
muxuu ahaa kaamneegi la magacaabay ama xukuumaddii la magacaabay kulley waan joognay maalmihii waxaa lagu xidhayay in waxa weeyaan shahaadadaadii masterta iyo CV-ga la kaale baa la lahaa wasiirada la magacaabay oo dhan ee kaamneega dhammaan waxaa la lahaa CV-gaagii la kaalay master wax ka hooseeya lama qabanaynin intaan anugu aan arkayo weeyaan marka waxaad moodaa in hadda waxa weeye loo ruqaansaday xagga waxa weeyaan aqoonta mustaqbalka uusan jirin ee tartanka aqoonta iyo tartanka siyaasadda laftiisa uu jirayo oo aad la socdaan walaalaheen oona lifna way nagu soo biireen iyagana ruclo badan baa jira marka ruclo badan ayaa jira marka waxa weeyaan yaan laga badinin weeyaane aqoonta inaan xoog ka saaro resource guud ee wadanka khayraadka wadanka miisaaniyadda waxa weeyaan waa la qaybiyaa meel walba inta ku hagaagto shidaalkana waxa weeyaan dadka meesha ka soo jira ha helaan xuquuqaha ku helaan oo environmental impact-ga ama waxa weeyaan deegaanka dhibaatooyinka loo geystay ama haddii dad aqoon-yahana laga hela hal la yiraahdo priority-ga iyaga hal la siiyo yay noqonaysaa laakiin waxa weeyaan khayraad guud oo wadanka uu leeyahay weeyaan marka taas waxa weeyaan saan qayb uga noqono inaan aqoonta xoojino aqoonta inaan xoojino engineering-ga xoojino waxa weeyaan sektarada loo baahan yahay oo dhan inaan xoojino ayaa loo baahan yahay laga maarmaan waxaan xooga saaray inaan bal technically waxaan meeshan u fadhino iyo shaqada soo socoto ee ina sugayso sida ay noqon doonto inaan wax yar ka yiraahdo meeshan waxaan maanta u fadhino waxa weeyaan soo jeedin in la soo jeediyo qaabka la rabo in research-ga loo sameeyo ayaa research proposal baa maaragtay ayaa naloo horkeeni doonaa ma ahan waa inay dadku fahmaan natiijo baaritaan oo la sameeyey wixii ka soo baxay in naloo soo bandhigi doono ma aha taa natiijada dambe markay soo baxdo madragu sida uu ka duwanaan doonaa dadka stakeholder-ka ah ee ay khusayso in loo bandhigo ayay noqon doontaa wiilku markuu noo soo bandhigo proposalkiisu shaqooyin badan oo ka dambayso oo la qaban doono ayaa jirta budget in la dheersada maaha sababtoo ah tools badan buu adeegsan doonaa in maaragtay waxyaalaha lagu soo baaro waxaa loo baahan yahay secondary dataagii u baahan doonaa primarygii oo dadka in loo tago ayuu u baahan doonaa observationno badan ee goobihii ay wax ka dhaceen iyo siday wax u dhaceen hadday caafimaad tahay hadday xoolo tahay hadday dhulkii nabaad guuray uu yahay waxaasoo dhan xataa shimbiraha meesha ku noolaan jiray iyo bey-adii deegaankaas ku noolaan jirtay hadday ahaan lahayd sagaarooyinkii hadday ahaan lahayd maaragtay wixii joog areada ku noolaan jiray oo dhan ee iskaga cararay oo dhan in laga wada hadlo wey waxaasoo dhan waa resource aan leenahay weeyaan waxyaalahaasoo dhan in la maaragtay research-ga lagu soo bandhigo waxyaala la rajayn doono weeyaan markaan meeshan waxaan ooga dardaarmayo rabno inaan ku xisaabtanno waxa weeyaan in baaritaankan la garab istaago qaabkee loo garab istaagi nin aqoontiisu ku garab istaagi ninna waxaa laga rabaa inuu maaragtay dhaqaalihiisa ku garab istaago in budgetka ku baxaya la qiimeeyo waxaasoo dhan ayaa loo baahan yahay marka hadhowto suusan waxyaalahan aan gallay aysan nooga meel cidlo ah inooga dhicin waxaa loo baahan yahay in maaragtay qaabkaa looga qayb qaato keliya inaan intaan maanta dhegaysano in lagu kala tegayo keliya hawsha kuma dhammaanayso weeyaan in cid walba oo halkan joogto aqoonteedii iyo dhaqaalaheedaba ay sidii natiijadaas loo soo gaari lahaa loona soo baari lahaa inay ka qayb qaadato arrin laynooga wada fadhiyo weeyaan talabaad qodobka labaad inaan soo koobaan jecelahay maadaama aan wax badan microphone aan haysanay talabaad aan rabo inaan ka shanqariyo waxa weeyaan project kasta oo adduunka la design gareeyo environmental impact buu leeyahay marka waqtiga maadaama wax badan aan qaadanay waxaa ila quman inaan guda galno maaragtay soo jeedinta research proposalka iyo ciddii ay soo jeedin lahayd assalaamu calaykum waad ogsoontihiin daahir baa la sheegay waxaa weeye ilaa maraykanka shirkad uu jiray baa bilowday markii dambe kaaluub baa yimid markii dambe qolada waxaa timid Malaysia Patronas la dhihi jiray haddana qoladan hadda wada arrintii waa lagu guuleystay meel fiican baynu marayeen arrinta way bilaabatay marka aan wadno marka waxay noqon dawladdan deegaanka iyo ta federaalka inaan wacyi gelinno dhibaatada si daraasada caafimaad ah iyo tii la sheegay deegaanka loo sameeyo marka waad mahadsantiin intaan baan proposal way waxa soo jeedinayno proposalkana marka hore in la soo jeediyo jidkii la mar laha la cadeeyo waa hawl loo baahan yahay weeyaan
marka proposalkeena wuxuu ka kooban yahay introduction baan sameynaynaa hordhac kadib review of the related literature wixii buugta kale aan ka soo yara qaadanay ayadana in yar dul maraynaa step kastaxaad waa jidkii loo marayay iyo sidii researchigan loo qaabeeyay waa muxuu ahaa ku xigi kadib qorshihii baa ku xigay shaqada sida loo qaban lahaa miisaaniyad aan estimate garaynaba ayadana ku xigayso marka ciwaanka researchigan waxa weeye Ogaden Oil Exploration Opportunities and its Environmental Impact waa fursadaha ka banaan shidaalkeenan Ogaden loo yaqaano iyo saameynta deegaan ee muxuu ahaa uu leeyahay marka hordhaca markaan dhahno hordhaceena qaybahan buu ka koobnaanayaa background buu yeelanayaa hordhac statement of the problem dhibaatadii in la cadeeyo iyadana waxa keenaya in researchiga la sameeyo su'aalaha researchiga baa ku xigi ujeedooyinkii daraasadan la sameeyay baa ku xigi ahmiyadda ay leedahay daraasadan hadii la sameeyo iyo iyadana ku xigi iyo inta ay ku kooban tahay daraasadan marka background of this study markaan dhahno hordhaceeda shan qaybood sidoo ra'iisul wasaaraha inoo sheegay mar shirkii ugu dambeeyay wada tashiga la yeelanay idinka kaliya ma aha oo dhahay qaybta shidaal laga helay waan u badanahay mooyeene shan qaybood baa jirta Ethiopia marka la dhaho shanta qaybood waxay kala noqonayaan the Ogaden qaybta la dhaho Tena Abai Blue oo qaybta Abai oo dhinaca webiga Blue Nile-ka qaybta saddexaad Maqale Block baa la dhahay qaybta afraad Gambela qaybta shanaadna waa dooxada koonfureed oo xagga dhawibta ku taal shanta qaybood bay kala noqonayaan horta wax shidaal laga helo laakiin shidaalkii in kharash la galiyo waxay ku xiran tahay waxa meesha ku duugan in la daraasaad lagu sameeyo marka shidaalka ugu badan dhulkeenaba ku jira bay ka dhigan tahay waa qaybta Ogaden loo yaqaano marka aan leenahay shidaalka ugu badan baa ku jiro qiyaas ahaan imisa ku jirta xageena jeexdin meeshaan leenahay oo ay inta badan hadda dunida ku caan baxday Kaalub sida madaxweyne ku xigeenka hore uu sheegay Kaalub waa shirkadii ugu horeysay ya magaceedii baa meesha ku shaabadaysay bay ka dhigan tahay marka saasa Kaalub loogu bixiyay laakiin magaca dhabta waa jeexdin way talawaade kale elala way elalana waxa hilaala waa dunida looga yaqaanaa hilaala marka labadan goobood baa ugu sii waaweyn goobta ugu weyn waa jeexdin waxa ku jiro 2.7 TCF waa trillion cubic feet oo shidaal baa ku jira way ka dhigan tahay 2.7 meesha LL ay ku jirto 1.3 wax lagu qiyaasay TCF trillion markaan leenahay cabirka markuu 100 milyan billion trillion waa tii ka sii dambeysay ka dhiganta waa shidaal badan intaas oo kaliya ma aha waxa kale ku sii jira 13.6 milyan oo barmiil ama foosto oo shidaal ah oo noocyada kala duwan ee shidaalka hal nooc laga ma helin noocyo kala duwan baa laga helay marka lixda nooc natural gas-ka waa 2.7 TCF buu noqon waxa sii dheer 13.6 milyan oo barmiil baa sii dheer oo dareerayaasha kale shidaalka la xidhiidho marka noocyo kala duwan noocyadii la soo bandhigay maalintii furitaanka la sameeyay waxa kale jiro meelo kale shidaal laga helo deegaankeena El Quran meesha dhahaan oo afdheer kamid ah jirto ayadana waxa ku jiro eber dhibic 6 TCF baa ku jiro marka LL iyo jeexdin labada ugu muhiimsan waa labada haddana jeexdin baa muxuu ahaa 2.7 ay ku jirtaa ahmiyadda ugu culus iyo kharashka waxa la galiyay meesha way markuu kharashka galayo waxa la eegaa waxa la isbarbar dhigay waxa meesha ku jiro kharash ma la galin karaa hadhow waxaad ka faa'iideysa ma yahay darteed way marka labadan waxa ahmiyadda loo siiyay Quraanna dib loo yara mariyay Quraan eber dhibic 6 baa ku jirto meesha 2.7 TCF ay ku jirto jeexdin marka saameyn uu ku keenay raadintii la sameeyay shidaalka iyo baahida jirtay way jirto oo balaadan fursado in laga faa'iideysto bulshadeennana way jiraan marka tiiba keentay in cilmi baaristan la sameeyo waa sababayn marka sababaynayno cilmi baaristeenan su'aalo marka la diyaariyay baa jiro su'aalahan su'aalo kale si dhali doonaan marka hadhow questionnaire-ka iyo interview-ga la diyaarinayo saddex su'aalood baa ugu waaweyn waa maxay saameynta deegaan ee uu shidaalkan Ogaden Oil and Gas yeeshay waa su'aasha koowaad su'aalo badan baa ka sii hoos bixi doona hadhow
ilaa heerkee intee la eg bay bulshada aaggaa deganee jeexdin iyo elale ee u yarayn kartaa muxuu ahaa saamaynta deegaan si saamayntii deegaan ee nagu imaatay loo yareeyo waa in hawlo badan la qabtaa wacyigelin waa in la sameeyo sidii wasiirku uu sheegay bulshadeena meesha degan sidaan ula shaqayn lahayn shirkadaha meesha ka shaqaynaya shirkadahana taariikhdooda haddii la dhaho shirkado badan baa ka soo shaqeeyay su'aasha saddexaad waxaa weeye sidee bulshada meesha degan ee uga si gaar ahaaneed iyo bulshada Ethiopia si guud marka la dhaho sidee uga faa'iideysan kartaa wax soo saarka shidaal ee Ogaden ka jiro marka su'aalahan baa su'aalo kala sii dhal doono kuwan way ku aan tuulasheena xog ururinta aan ka duuli doono insha Allah ujeedooyinka daraasadan waxa weeye in la ogaado saamaynta muxuu ahaa deegaan ee uu yeeshay shidaalkan in la yareeyo environmental impact ee saamaynta deegaan ee jeexdin iyo elale si bulshadana looga faa'iideeyo in la fudaydiyo aqoonta iyo fursadaha meesha ka jira inaan dadkeeni u iftiimino oo mid kuwa laga faa'iideysan kara ay noqdaan iyadana waa mid kale ee soo raacayso marka daraasadan marka la sameeyo yay ahmiyad u leedahay oo ka faa'iideysanaya daraasadan marka la sameeyo bulshada meesha degan oo inaga ah ahmiyad way noo leedahay waxte meel inoo oo loo documenti abay noo noqoni midda labaad shirkadihii hore ee sii jiray haday kaalub tahay Petronas Team Malaysia haday tahay ku tan hadda u dambayso Bol GCL haday tahay iyo kuwa ka dambeeya haday jiraan ayagana wax ay ka duulaan documentary review of the related literature way u noqon kartaa cid kasta oo research dib u sameynayso research marka la sameynayo cilmi baaris wixii sii jiray waa in wax ku kabo way ka dhigan tahay cilmigii la sii yaqaanay waa in cilmi kale oo buuxinayo meesha uu ku soo daro hadii dad kale ay kabis doonaan mustaqbalka ayadana meel ay ka duulaan oo tixraac u noqoto iyo insha Allah mustaqbalka noqon doona xafiiska deegaanka iyo macdanta ee heer deegaan ayadana documenti ay isticmaalaan buu noqon doona insha Allah waxa kale kamid ah enterprise wakaalad heer federaal ka asaasan oo la Ethiopian Petroleum Supply Enterprise baa jiro kuwaasna ayagana gashi buu noqonaya hadii cilmi baaristan la sameeyo wasaaradda macdanta iyadana sidoo kale bangiga adduunka hadda ka hor lacag iyadana ku bixiyay $74 milyan ayagana baahi culus bay u qabaan waxa kale kamid ah wadamada u heelan inay muxuu ahaa nala garb istaagaan wax qabadka hawsha meesha ka jirto sida Jarmalka oo kale Jarmalka wuxuu kamid yahay wadamadii ugu horeeyay sawir baa inta tusdoona sawir xaga ku dhagsan ugu jira 1960meeyadii sawir la qaaday weeye oo shirkad Jarmalka ka socotay oo jeexdin ayaga joogo marka barnaamijyada ka diyaariyeen baa jiro ahmiyad inay meesha leedahayna waxaad ka garanaysaan safiiro badan inay noo imaadeen waad ka garan kartaan mar 13 mar 25 inay imaadeen marka ahmiyad dhinacyo badan buu leeyahay bay ka dhigan tahay cilmi baaristan waxay ku kooban tahay oo kaliya 5 qaybood ee Ethiopia shidaalka laga helay kuma koobno waxay ku kooban tahay si gaar ahaaneed Ogaden oil bay ku kooban tahay marka afarta kala kama hadlayna way ka dhigan tahay midan oo kaliya uma ka hadlayna shidaal sidiisa marka la dhaho marxalado kala duwan buu maraa si guud waxa loo qaybiyaa laba waji upstream qaybta hore iyo downstream qaybta dambe baa la kala dhigay upstream ka waxa weeye marka baaris la sameeyo kala shidaal inuu meesha ku jiray inuu ku jirin marka la kala ogaanayo ya upstream explore qaybta hore ay noqonaysaa marka xigo in goobtii shidaalka laga helay in loo diyaar garoobo in laga soo saaro waa qodistii waa shaqooyinkan hadda socday ka dhigantaa marka downstream wajiga labaad marxaladda shidaalku uu maro labadan marxaladood hadda inaga waan soo marnay laakiin saddexda marxaladood ee wajiga labaad way noo dhiman tahay ka dhigan tahay shidaalka marka la soo saaray isagoo dhooba uu marka hore soo bixiyo ciidii iyo wasaqdii aan la kala saari karin waa la nadiifiyaa nadiifinta wajiga labaad bay ka mid tahay ka dhigan tahay transportationka hadii tuubo lagu qaadayo iyo hadii jidad kale la isticmaalayo sida hadda booyadaha ay u qaadaan oo kale iyadana waa wajiga labaad bay ka mid tahay iyo qaybintii marka in wadamada loo iibgeeyo iyo in inta inaga ka isticmaal lahayn laga isticmaalo marka labada marxaladood buu u qaybsamayaa marka marxaladda koowaad marka leenahay inaga dhulkeena xeriyooyin baa ka asaasan markii baarista la sameeyay hadda kaambigan waa kaambiga jeexdin oo dusha kore laga sawiray
qalabkii wax baadhay waxa kamida gaadhigan oo vibrator track baa la dhahaa gaadhigan marka dhulka uu garaacaya markuu garaaco fiilooyin yar yar ka baxayo fiilooyinka yaryarka dhinac walba loo daadiyay afarta dhinac waa la daadiyay marka la baadhayo way marka garaaca uu garaacayo shidaalkiiba dhaqdhaqaaq sameynay dhaqdhaqaaqana qalab baa si duwan galinay qalabka duwan galiyay wuxuu soo qoray geologistiyaal baa si akhrinaya way ka dhigantaa in meesha shidaal ku jiro inuu ku jirin inta leeg baa ku jirto cabirka halkaas ka soo baxaya waana shaqo dadkeena ay qabteen hadda ka hor marka gaariga vibrator track gudihiisa sidan buu noqonaya qalabkii shiinaha ay ku wada xiriirayeen markay gaariga isticmaalayaan radioga halka ay isagana idin ka muuqda tan waa dadkeeniyo xarkaha daadinayay waa markay la shaqeynayeen xarkaha gaarigaas dhinac walba uga baxay markii la daadinayay gaariga reportka akhrinayo waxa la garaacay warbixinta soo jeedinayna waa kan weeye computer gudihiisa ku jiro niman geologistiyaal ku dhex jiro nimankaas waxay akhrinayaan warbixinta ka soo baxda garaaca dhulka la garaacayo inuu shidaal ku jiray iyo inuu ku jirin marka waa sawirkan waxa weeye 1962 sawir laga qaaday Jarmalka mar ay xagga tageen oo baarista sideedaba shidaal marka la leeyahay qoladii ugu horeysay heshay kuwii kale wax ka qabtay kuwa u dambeeya wax ka qabanayo qolo walba percentage bay ku yeelani marka waa xisaab meel u taalo bari marka laga faa'iideysto qayb ay ku yeelanayaan marka saas baa keenaysa hadda ka hor Jarmalka maadaama ay gashi sameeyeen oo wax ka qabteen inay xisaabta halka ay la socdaan waa hawl ayaga u taalo marka inagii si lahayn inaan la socono oo xogtaas aan si fiican inagu faahfaahsantahay way fiicanta qaab dhismeedka cilmi baaristeena marayo waa noocyadan way marka goobta aan ka hadlayno waa Ogaden oil oo kaliya bay ka dhigantaa meel kale ma aha waxaan isticmaalaynaa descriptive survey design oo macnaha waa questionnaire iyo interview discussion noocyadaas baan xogta ku soo urursan doonaa mustaqbalka xogta noocyada aan u soo helayno primary way noqon inaan goobtii la tago oo dadkii goobjoog u ahaa la soo wareysto secondary way noqon in buugtii hore looga qoray maadaama aan heli karin dadkii qoray buugtii wixii ku qoraa inaan xog iyadana ka soo qaadano waa jidka labaad ee isticmaal labada jid baan u maraynaa inaan xogta urursano labada goobood ee culayska si saarayno waa labada goobood ee shaqada hadda ugu badan ee ka socoto waa jeexdin iyo LL noocyada aan xogta urursanayno interview ba kamida waa ruuxii la wareysanayo su'aalaha aad qabto qaar ba af inaad ka weydiiso fiican qaar ba su'aalahan iyadoo qoran inaad u dhiibto fiican qaar ba in laga wada xaajoodka wixii ka soo baxa ee ku fiican tahay qaar ba dokumentiyada inaad ka soo urursato fiican marka jidadkan jidadka aan isticmaalayna haduu Ilaahay dhaw muddada uu qaadanay research-ga waxaan ku qiyaasnay 2019 bisha Maars inuu naga dhamaado hadii isbedel kale uu sanagu imaan waa dhanka waqtiga marka leena dhanka miisaaniyadana waxaan ku qiyaasnay 96500 iyadoo kala baxaysa sidan waa mahadsantiin waa soo koobay sama iyo xumaataba saaxiibkayga kama haro Soomaali baanahay saamigayga lama cuno sama iyo xumaataba saaxiibkayga kama haro waxaan ku sooro sugo wanaqana aniguna sadquureed kama qaato ruuxsida waxaan ku sooro sugo wanaqana aniguna sadquureed
كما قاتل روح سدا سادا سقيها قردر لما ساعدو قفي سادا يبالكي كسيه قرتاناي مدير سادا سقيها قردر لما ساعدو قفي سادا يبالكي كسيه قرتاناي سيريانو موق كما سيحضو قلبتي صباحانو قاذي صورتي دواغا نبنا إيقاما سيريو صومالي باناي نيني سيريانو موق كما سيحضو قلبتي صباحانو قاذي صورتي دواغا نبنا إيقاما سيريو